ثابت بن قيس صحابي اللي أورنجري أيو النبي مساجد كيسي وكتبي مرقابو النبي ما فعل ثابت ثابت محاها لي ثابت محاها لي مرقاس النبي قال له يا رسول الله صدح مع الموضوع نقاس إن لما تكنوا مصليه ماركتان الريركي سعود وابو كتو كذا صحابة رسولنا رضي الله عنهم عهدي النبي وحي كحدنا يا المساجد كالنبي لأن مساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم قرآن كايا النبي وحي كسو دقايي maalin walba warka samada ka imanayay saxaabadu inay dhageystaan ba u imanayeen laana dad samada ku xidhan baa hayeen iyaku inaku dad dhulka ku xidhan baan nahay maanta dhulka waxa ka soo baxa ayaa dadka zamankan maanta ay ku fooraraan ayakuna indhoogu korba u jeedano warka samada ka imanayay bay mar walba la socdeen ay dhageysanayeen markaan maalintii saxaabigu hadduu hal salaad masjidka nabiga ka maqnaado laba salaadood uu ku soo tukan jiray masjidka nabigeena sidoo u maqlo waxyiga nabiga ku soo dagay aakhirada ka waramaya ee khalqiga abuurka adduunyada ka waramaya ee maaragtaan cirkiga dhulka abuurkooda ka waramaya ee ummadihii naga horeeyana ka waramaya fiihi naba'u ma qablakum wal khabaru ma ba'dakum ba nabigu quraankani waxa li wixii adduunyada hortiin dhacay oo dhan uu ka waramaya waxa soo socdana quraanku waa ka waramaya buu rasuulku yiri wal hukmu ma baynakum inka dhaxdiinana haddaad noqotaan xukun u baahataan qaabkaad u kala bixi lahaydeen qof walba xaqiisa ku heli lahaana quraanka ayaa inii cadeynaya baa ilaahay quraanku wuxuu qeexayaa aabuhu inaka xaqa uu ku leeyahay ilmuhuna aabaha xaqa uu ku leeyahay jaarka kale xaqa uu ku leeyahay madaxdu shacabka xaqa ay ku leeyihiin shucuubtana madaxdooda xaqa ay ku leedahay xaaskiisu xaqa uu ku leeyahay dariskiisa xaqa uu ku leeyahay qaraabadooda xaqa ay ku leedahay xukun weeyaan qof walba xaqiisiibuu quraanku cadeynaya من قال به صدق با نبي يقول قف كذا إلهي بس دا يدي رمبو شاقي ومن عمل به أجر قف قرآنك كو عمل فلينا والله أبا المرياب النبي يقول أجربوا كهلا قرآنك ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم قف كذلك قرآنك أقوي إليه والقرآنك هنقبصنه والقرآنك هنبرنه وردينتنا هنصر نغنه والمساجد إنجلية كان طريق مستقيم كو دعا النبي يقول ومن حكم به عدل قف قرآن أمد كردغي أمد كحكمنا وعدالة فليب النبي قول عليه الصلاة والسلام مركا وحيغا السمد كإمنا أيا صحابة رسولك رضي الله عنهم هوين كودا أيا كحدنا دلن يردو دا أيا كحدنا رقو دا أيا كحدنا دانا مركاس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن النبي قول تبوح ليهي ورنقي ثابتها محاهلي مالمها المسايد كمان أركنه مركز اسلام مركب النبي وحو در الزياره ودر النبي صلى الله عليه وسلم انكم ما انت جارك كلك ما ورهيو ولكن صحابه رسولك رضوان الله عليهم اجمعين وحي اهايان دد اسك ورهيا بهايان كبك ولا اوغانيي كمساجد النبي كما مقنا مركب ولا اوغانيي والله يا مركز صحابي nabiga ku doonaya lagu yiri isagoo ooyay ayuu markaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaa buu nabiga ku yiri maxaa kugu dhacay saddex maalmood oo isku xigta thaabitow maxaad masaajidkayga u imooyda bali sheeg wuxuu yiri saddex aayadood oo quraanka ku taala ayaa maalmahan adiga dushaada ku soo degtay saddexdaasiba nabi allah aniga un bay ga warbixinayaan buu yiri quraanka sida u fahamsanayeen ma la soco bargaabo nabigu ku yiri waa saddexdee in allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur adoon kasta oo faan badan oo xaraga badan ilaahay ma jecla la yiriyo aniguna nin xaraga badan baan hoo faanka jecel baan hay buu yiri ilaahayna ima jeclo aayadaas cadaynaysa aayada labaad waxa weeyaan la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مركا النبي محمد لجوكتان عليه الصلاة والسلام النبي حلقات يساعات فردان هذا الذي هذا النبي كرها وقادنا بالليلي أنا قلنا نين قيلة بدن بانه قيلة دوي دير تحي آيات داسنا حق الدم وحي كل شيء قيسا كو النبي محمد يكو أجوك هذا الكوغ النبي هذا القيس كر وقادايا إن عملك صالح إقابتين وكبرتو كبري أي شيء قيسا دانا قرآن كاس وحو عدينيا إن أنيقا ما ركتانا وعملك يقبري آيات صدحاتنا وحوري ويحبون أن يحمدوا
bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimabazatin min alcadaab ilaa aakhiri alaaya waxaa la yidhi waxay jecel yihiin mar walba in lagu ammaano waxaynan iyaku aynan samaynin aniguna nin ammaanta jecel baan ahay saddexdaa aayadood oo dushaada ku soo degay saddexduba anay iga warbixinayaan buu yidhi markaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lasta miman yafcalu dalika buu ka yidhi yaa haabit adigu sidaa ma tihid buu ka yidhi saddexdan aayadood dadka ay ka warbixinayaan adigu kuma jirtid bal taciishu xamiidan wa tuqtalu shahiidan wayudkhiluka allahu aljanna buu nebigu ku yidhi sal alla alay slam taciishu xamiidan waxaad noolaan doontaa adoo ilaahay ku jecel yahay oo nebigiisuna ku jecel yahay oo muuminiintuna ay ku wada jecel yihiin ayaad ku dhex noolaan doontaa adduunyadan wa tuqtalu shahiidan gaal gacan gaalna waad ku dhiman doontaayo shahiid baad noqon doontaa shahiid wayudkhiluka allahu aljanna ilaahayna jala wacalaa jannaduu ku gelin doonaa buu nebigu ka yidhi marka qur'aanka ayay iyaku fahmayeen wuxuu ka hadlayo inakana de qur'aanka allah ina fahamsiiyade waman kana fi hadihi acmaa fahuwa fi اlaakhirati acmaa waadalu sabiila waa indhoole weeyaan indhoole muadinkii nebigeena calayh salaatu wasalaam aayadda daahirkeyga intuu soo qaatuu nebiga ula yimid uu leeyahay aayaddan anigoon ba iga warramaysaayo o aniga nebi allow sidaanaan ahay markaa buu nebigu uhi may indho la'aanta loo jeeday buu nebigu uhi waa indhaha qalbiga xaqiiqada meesha laga fahmaana waa qalbiga xaqiiqada meesha laga arkaana waa qalbiga qur'aankuna aayad kitaabka qur-aanka ku taalla fii suurati alambiya waxay sheegaysaa caqliga iyo quluubtu inay mid keliya ay yihiin lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay yidhi dadka gaalada ee maanta adduunyada dusheeda inagula nool markuu ilaahay ka warbixinayay wuxuu yidhi quluub way leeyihiin laakiin waxba kuma qabtaan baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhaan qalbigooda marka noloshan adduunyada yare gaaban ee ilaahay nagu deeqay walaalayaal waxaan ku hagaajinaynaa waa diin aakhirada weyniga badanle waxaan ku hagaajinaynaa waa diin diin maxaa la yidhahdaa markaa ma huwa diin innaka maanta diin haddaan maqallo waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmaan salaada oo la tukado iyo xajka oo la tego iyo zakada oo la bixiyo iyo soonka oo la soomo iyo shahaadateynka waa arkaan alislaam weeyaan arkaan masaajidkan rukunnadan uu ku taagan yahay laakiin rukunkaa keliya haddii la dhiso oo rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso rukunkaa la dhiso masaajidkii weli ma taagnay ka dhigantahay rukunnadii maskiidka shubka sare qabanayey ayaa la taagay shanta arkaan alislaam haddaad la timaadidna weli islaamnimadaadii ma dhammaystirna ogow bilowgii baad joogtaa bilow miaal nin baa boos lahaa boos wuxuu ihi warniyo booskii aan lahaa baan aqal baan ka dhisayaa halkeed maraysaa baa lagu yidhi wuxuu ihi seeskii baan marayaa seeskii kow bundooy kaabadihiina waan dhisay buu odhanayaa tiirashii aqalku ku taagmayana waan taagay ma bilow buu maraya mise dhammaad buu maraya ninkaas bilow buu marayaa bidaaya shanta arkaan alislaam haddii noloshaada laga helana shanta arkaan alislaam haddaad noloshaada aad ku dabaqdana weli waxaad joogtaa bidaayat lislaam baad joogtaa ee nihaayaddii weli ma gaadhin bay ka dhigan tahay bidaayaad joogtaa islaamku wuxuu ka bilaabmaa waxa weeyaan arkaan alislaam buu islaamku ka bilaabmaa islaamnimadu meesha ugu dambaysa ku dhammaatana waa dabeecadda wanaagsan weeyaan xusnu اlkhuluq sakfiga islaamku waxa weeyaan finishin aqalku waxaan marinaynaa finishinkii buu marayaa baad odhanaysaa marka waxaa loo fahmaya aqalkaasi waa dhammaad haddeetoole aqalkan islaamku waxa uu ka bilaabmaa waa arkaan alislaam waxa uuna ku dhammaadaa waa xusnu اlkhuluq oo nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam akhlaaqdiisii oo dhammaystiran ayay culammada islaamku intay noo diiwaangeliyeen ayay kutubta noogu qoreen imaam aturmidi raximah اllah shamaa'il buu ku soo qoray shamaa'il imaam nawowi raximah اllah adkaara nawowi buu ku qoray maaragtaanay imaam nisaa'i raxmat ullaahi calayh adkaar alyowmi walleyli buu ku qoray waa maxay waxaasoo dhan xayaatadii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam min waagu markuu beriyo
ilaa uu nebigu gabalka u dhacayu seexanayo ilaa uu jiifka ka soo kacayo adkaartii u akhrin jiray baa laynoo qoray habkuu u soconayey baa laynoo qoray habkuu dharka u qaadanayey baa laynoo qoray habkuu ubadka ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu reerihiisa ula dhaqmayey baa laynoo qoray habkuu ummadda ula dhaqmayey baa laynoo qoray adigii anigana waxaa laynagu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana waxaa kaloo laynagu yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam aad adeecdaan oo hadalkiisa aad yeeshaan oo dhaqankiisa aad la timaadaan baa ilaahayna leeyahay waad hanuunteen buu ilaahay yidhi jala wacala rasuulka ilaahayna waxay niigu ahaatay ku dayasho wanaagsan ku dayo malag mahayn bashar buu ahaa baahiyada adu aad qabtana isna uu qabay haddaad adigu jiif rabto uu jiifsaday haddaad cunno cunaysa isagoo cunto uu cunay haddaad dhar xidhanaysa dhar uu xidhay haddaad reero leedahay reero uu lahaa haddaad ubad dhashay ubad u dhalay haddaad qaraabo leedahay qaraabo uu lahaa haddaad jaar leedahay deris uu lahaa hadduu gaalo deris haddaad dad isku diinaad ahayn deris hadla tahayna yahuud buu nebigu deris lahaa calayh isalaatu wasalaam sidii dadkaasoo dhan uu xuquuqdooda u ilaaliyo u gutay waa laynoo qoray bas way qoran tahay